Middle East ay baan daawanayay program la yiraahdo laga sheekaynayo Suudaan waxa ka dhacaya Emirates-ku sida ay u koobi gareynayaan wadankii isaga ahaa dadkii bukay ee zaayad ahaa siday u koobi gareynayaan siday xayawaan ugu yeedhayaan Suudaanta daayeero siday ugu yeedhayaan ma daayeeraa dahab u baahan they think they deserve it sida kuwaasi xooga iyo maalka iyo nafta iyo wax walba oo Falastiin leedahay ay ugu haystaan inay iyagu waajib u leeyihiin bay kuwanina ugu haystaan dahabkan ilaahay dhigay Suudaan inay iyagu xaq u leeyihiin Somalis need to boycott wadankaas isaga ah I know in badan oo nimanka Soomaaliyeed ka mid ah Starbucks bay wali wax ka cabaan I know Soomaalidu star symbol bay u haysataa Dubai in la tago wadanka weligay ma jeclayn Emirateska weligay ma jeclayn mar baan tagay I couldn't wait to get out markiina inaan ka baxo ma basugi karaynba Suudaan waxaa laga raacay dekadooday maamulayeen Khartoum $6 billion contract ay ka noqotay Suudaan because iyagoo dhinacna dekadooda ka maamulaya ayay dhinacna dadkooda isku dirayeen si ay legally u mine gareeyaan dahabka Suudaan What do you think is going to happen Puntland iyo Somaliland ma ka noqon karaan kontaraaga ma ku dhacaan inay ka noqdaan I bet they can't The truth is Emirates-ku wuxuu u qaabilsan yahay reerka isaga ah Afrika inay Afrika qasaan kuway qabiil isugu diri karayaan ay isugu diraan kuway ma garanaysaa midab ahaan isugu diri karayaan ay isugu diraan because reerka shaqadooda waxa weeyaan iyo diintooda waxay dhigaysaa si Ilaahay u yimaado adduunka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa in dhiig ku qulqulaa waa in caruurtu dhimataa waa in ba iyo hoog sugnaadaa dadka morality-ga waa in lagala dagaalamaa I know Starbucks wali Soomaali baa tagto aan boycott ku samaynin waa laydin weydiinayaa aakhiro we need to boycott Dubai iyo Emirateska and you need to boycott Starbucks kuwiina wali tago ilaahay wejigiisa waa laydin weydiinayaa haysordhina awood ma lihidin